shirka maanta beesha Maxamuud Garaad iyo beesha Garxajis muddo dheer baan labada beelood aan isu iman beesha Maxamuud Garaad iyo beesha Garxajis shirar hore bay soo yeesheen shirar kaamil dalkoodii waa loo aayay kala maqnaanshaha raagay ayaa waxa keenay xoogaa ismoodmood laakiin nasiib wanaag qodobka ugu horeeya shirka ka soo baxay maxalliga shirka waxa loogu magac daray mideeye qodobka labaad labada beelood waxay ku heshiiyeen inay ahayahooda iyo danahooda ka midoobaan oo sidii hore u dhacday mar labaad aanay kala duugoobin ka saddexaad gobasha nabadda inay si wada jira ay uga wada shaqeeyaan nabadda maanta gobashani ay u taallo ayna noqoto qodob xeer ah oo meeshii gobol nabadeed la dhigo maanta iyo wixii ka dambeeya si wada jira looga wada shaqeeyo waxaa la isla gartay in la dhiso guddi ka kooban labada beelood oo ka shaqeeya danahooda danaha beelaha iyo wada jirkooda si hawl socota oo aan kala go' lahayn sidii loogu ballamay loogu kala tago maanta iyo wixii ka dambeeya qodobka shanaad in laga wada shaqeeyo horumarinta iyo nabadgelyada deegaanka maadaama dal iyo dad wax inoo kala socon aanay jirin marka run ahaan looga hadlo sida aynu isku nahay haddii ay tahay dal iyo deegaan iyo dadnimaba qodobada nuxurka shirku ahaa waa intaa wabilaahi tawfiiq